kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan ku eegayno xaaladda barnaamijka dibadejinta ee degmada Imey Bari ee gobolka Shabeelle. dowladda federaalka iyo tan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay dejiyeen qorshayaal iyo istiraatiijiyado wax lagaga bedelayo nolosha bulshada xoolo dhaqatada iyadoo la sameeyay barnaamijkan dibadejinta oo bulshada xoolo dhaqatada lagu dejinayo agagaarka webiyada si ay uga faa'iideystaan wax soo saarka beeraha waxaana waqti xaadirkan la dejiyay gobolada ay maraan webiyadu dad aad u tiro badan kuwaasi oo ku hawlan ka faa'iideysiga wax soo saarka haddaba barnaamijkan aan ku eegayno xaaladda dibadejinta ee degmada Imey Bari ee gobolka Shabeelle ayaa waxaa noo suurta gashay inaan ku booqano xafiiskiisa madaxa xafiiska xoolaha beeraha ee degmada Imey Bari mudane Maxamed Sayid Xuseen kaasi oo aan wax ka weydiinay halka uu marayo barnaamijkan dibadejinta ee degmada Imey Bari waana kan isagoo ka warbixinaya xaaladda barnaamijkan haddaan ka warramo dhanka waxqabadka dibadejinta horumarinta webiyada dooxooyinka targetka anagu wuxuu ahaa qorshe ahaan 6537 qoys inaan dejino taas oo xoolo dhaqato beerley dad xoolo dhaqato ah oo ujeedada hadafka guud ee siyaasadda horumarineed ee deegaanka uu qaatay ku aadanayd in laga dhigo dad beerley ah oo ka faa'iideysta biyaha webiga ee aaga webiga goobaha dibadejinta ee calaamadaynay ee hore dawladdu ugu calaamadaysay dadkii la dejin lahaa dadka marka waxaa noo suurtagalay inaan dejino 5917 qoys halka uu qorshuhu ahaa 6537 qoys iyadoo rubaca afraad dhamaystirka qoysaskaasi ay tahay mid aan qaadanay oo lagu guda jira si fiican lagu howlan yahay goobaha dibadejinta oo ah kuwa hadda muuqaal fiican uu ka muuqdo sida qorshayaashii kale ee dhanka dawladda ha dhamaystirkooda dhanka dhamaystirka xagga caafimaadka waxbarashada beeraha iyo biyahaba ayagoo si fiican loogu howlan yahay dhamaystirada mataqaanaa baahida shacabka laga jawaabayo la soo dejiyay shaqaalaha dawladda oo kale macallimiintii DAyadii health stationkii caafimaadka xubnahaasi mataqaanaa si toos oo wada jiraan way uga shaqeeyaan maamulka kaabineyga oo si joogto ah goobaha ugu kala qoran oo si joogto ah u jooga goobihii dadka la dejinayay oo qoys kasta si toos loo tarakabsiiyo dhulka guriga ah iyo ka beerta labadaba marka dhanka dibadejinta oo hadaf dhanka dibadejinta oo si fiican looga dhaadhiciyay shacabka hadda isbedel weyn baa ka muuqda Imey Bari ahaan isbedel weyn baa ka muuqda dadku way soo degaan dadka webiga deganaa iyo dadkii kor deganaa waa la isku keenay waxay degan yihiin marka goobihii loo calaamadeeyay ee dibadejin ahaan aan u qaadanay goobihii modelka aan u qaadanay ee dejinay si fiican u degan yihiin kaalinta shacabku uu ku leeyahay maanta aad bay u fiican tahay sababtoo ah waa dad isku tashaday oo iskaashatooyinkii iyo nidaamkii loo sameeyay qaatay kana faa'iideysta matooradooda iskaashata kasta iyo iskaashata aqoonsi leh oo istaqaana oo
qoysas oo isku jirta oo ka wada faa'iideysta hal matoor hektarkoodii iyo mataqaanaa matoorkoodii isla leh oo qiimo maanta uu ka muuqdo way iskaashatooyinka oo kaleeto dadka waxqabadkiisa oo kale xilligii hore tabca dadku maadaama aad u aqoonin hadda laakiin waa dad aad u tabcada tabca wax soo saar ah dad ku tartamaya way maanta sababtoo ah waxyaalaha soo saarayaan ugu muhiimsan sida basasha iyo sinsinta iyo kale xilliga hore ee galeeyda kaliya ay soo saarayeen ma aha maanta laakiin maanta waxa ka muuqda wax qabad dhinaca wax soo saarka ah oo ay ku tartamaan qabalee kasta qabalaha kala iga fiican kana ka fiican marka ayaga dhexdooda aqoon suudaarsi aanu sameynaa jirta oo tamakaro asay u kala qaataan kuwan say wax u beerteen kuwana inuu beeranin aan keenno dadka ugu macquulsan oo ay eegaan kuwana waxay kuwan ku dhaamaan si ay uga qaataan marka ujeedahaan aad bay u fiican tahay maanta heerka ay marahayaan dadka la dejiyay in bashalay daraad iyo goobihii aan booqanaynay waxay ahaayeen goobo u ka muuqda master plan waxay dadkan hadda la dejinaya kaga nasiib badan yihiin meelihii hore magaalooyinka ahaa ee magaalooyinka hadda degmooyinka ama master plan koodu si fiican maaha laakiin meelahan hadda dadka la dejinayo meelo tayo mustaqbalka master plan u baahan ma aha waa goob si dhab ah loo digi karo booski aad ka hesho maxaa yeelay master plan baa lagu saleeyay mar haddii master plan lagu saleeyay uma baahno wax kale waa dhul la isku halayn karo dadku marka guriga hantida ah ee muguuraanka ah iyo ka dhigsan karaan master plan dambana uma imanayo master plan sayidadku aad buu u fiican yahay team heer deegaan iyo heer federaal iskugu jira iyo zone iyo degmaba iskugu jira yuu ahaa oo injineeradii leh cidii samaysay master plan gacan weyn baana laga siiyay saa darteed waxyaalaha aad la iskugu halayn karo master plan-ka kowka amaanta qorshe aad u fiican baa noo yaala sababtoo ah qorshaha noo yaala waxa weeye in aan dadka xoolo dhaqatada aan ka dhigno xoolo dhaqato beeraley waxqabadkii xafiiskuna uu noqdo mid muuqda qorshayaalkaanagii badankooda hadda sanadka noo yaalay dhammaystir wax u baahan mooyeene way wada hirgaleen hadday dadku ay kaalinta annaga ay naga filahayaan waxa weeye inaan gaadhsiino abuurka oo kaleeto inaan gashiyadii kala duwanaa gaadhsiino qalabkii gacantoo kale inaan gaadhsiino waxyaabahaasoo dhan nagu gaadhi in ay helaan dadkii xagga mataqaanaa DA-gii caawin lahaa mataqaanaa haddii beertu cudur galana ka caawin lahaa ama habka beerashada casriga tusi lahaa nidaamyadaasoo dhan waxyaalaha waxqabadka fiican laga sameeyay sanadkan 2004ka weeye marka qoysaskani waxay aad ugu nasiib badan yihiin waa qoysas lagu dhex jiro oon habeen iyo maalin laga dhex bixin dadkan dib u dejinta marka goobaha dib u dejinta laga sameeyay goobo aad u qiimo badan oo dad kala duwan la iskugu keenay wax badan laga faa'iiday oo goobo magaalooyin ah weeye hadda maanta sanadka bilowgiisii qorshe waxaa noo waxqabad qorshe oo dhinac kasta sector kasta taaban haya oo noo dejisnaaba jiray xafiis ahaan kaas marka ruuxii ugu dambeeyeen hadda ku jirna waxaa hadda aan qiimeynay waxa weeye dhamaystirka waxyaalihii noo hadhsanaa dhamaystirkooda oo kala weeye dhanka xoolaha oo kale talaalkii iyo daaweyntiiba si fiican baa hadda loo wadaa goobaha caafimaadka xoolaha oo kale way furan yihiin functional way daryeelayaasha caafimaadka xoolaha iyo shaqaalihii fidinta xoolaha si toos ah u shaqeeyaan talaalka iyo daaweyntaba way fuliyaan marka target fiican oo isbedeleed baa taana ka muuqata intii ay na soo gaadhay daawada xafiiska hirdigan uu na soo gaarsiiyay marka aad bay u fiican tahay nidaam ahaan uu fiican yahay heerka hadda daboolka caafimaadka xoolaha oo kale si fiican buu fiican yahay dhanka khayraadka dabiiciga oo kaleeto xafiisku wuxuu sameeyay xarun nursery site ah oo weyn xaruntaasoo ugu talagalay inaan goob uga qaybino dhir aan uga qaybino goobaha dib u dejinta oo dhan taasoo markaa idna noo qabsoontay noo suurta gashay qorshaha kaanaga ah wuxuu ahaa inaan soo saarno 50,000 oo geed halka
iyo 3,000 iyo 400 aan soo saaray marka si fiican baan ugu qaybinay goobihii dibadejinta aan una gaarsiinay xaruntiina waxaan ka dhignay xarun functional ah marka si fiican bay noogu suurta gashay waxyaalaha kale tijaabooyinka aan sameynay waxaa ka mid ah demonstration site-ka oo kaleeto waxaan sameynay inaan sameyno tijaabo ku aadan dhinaca wax soo saarka sida bariiska oo kaleeto calafka xoolaha oo ilaa 4 nooc ah oo kala duwan si ay bulshada oo la qabsato marka taana way noo suurta gashay bariiskii nooci ugu fiicnaa buu u baxayaa dhinacii calafka xoolahana noocyadii kala duwanaa ee tijaabada aan ka qaadnay tijaabo aan ku guuleysanay noqotay tusaale ahaan bulshadii beeraleyda ahayd iyo beeraley xoolo dhaqatadiiba waan iskugu keenay si ay faham fiican uga qaataan taana heer fiican bay maraysaa daboolkeedu marka waxaan rajayn in sanadka 2005ka uu noqon doono isbedel kobac ah oo sii kordha xagga horumarka in isbedel ahaan mid aad u kordha yaan rajayn inuu noqdo bulshada waxaan dardaaran ah oo bulshada guud ahaan deegaanka Soomaalida u soo jeedin lahaa in iyo gaar ahaan degmada Imey Bariba in ay xoogga saaraan barnaamijkan webiyada iyo dooxooyinka oo ah ka kaliya ee lagu xaqiijin karo maanta horumarka deegaankeena kaasoo sal u ah caafimaadka iyo waxbarashada iyo beeraha iyo biyaha inay hal goob ah ay ku qaataan dadku goobtaas oo ah goob waxtar ah oo ay kaga faa'iideysan karaan dhinacyada kala duwan ee kaabayaasha horumarineed ah iyadoo oo dawladuna ay tahay target fiican ay ka qaadatay hadaf aad u wanaagsan ay ka qaadatay oo fikir ah iyo ficilba waxqabadeedba ay ka qaadatay fulinta barnaamijkaas in shacabku marka ay ka faa'iideystaan oo loo keenay hadda haamihii shidaalka loogu shubi lahaa shidaalka qiimaha jaban oo kaleeto ay kaga faa'iideysan lahayn bulshadu loo keenay aad bay dil fiican uga heleen beesha litirkii uu 25 ka ahaa in 10 iyo wax mid ah loo keenayo marka iskaashtooyinku waxyaalaha moralka aad u fiican ay u heleen waxa weeye markay arkeen waxa loo keenay haanti shidaalka lagu shubi lahaa lagu kaydin lahaa ay ka qabsan taas oo kaalinteeda deegaanka uu ka qaatay xukuumadda ay si fiican uga qaadatay marka wixii hadda soo gaarayay waa shidaalkii oo kaliya marka isbedel fiican oo ku aadan dhinac kasta isbedel fiican oo dhinac kasta ku aadan way haysataa maanta bulshadu mid la isku haleyn kara haysataa maanta bulshadu marka inay ayadana bulshadu waxaan u soo jeedin lahaa uga faa'iideystaan sida uu habboon bulshada dibadejinta loogu sameeyay ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ay ka faa'iideysteen barnaamijkan isla markaana wax badan iska bedelay noloshooda iyo dhaqaalahoodaba iyagoo sidoo kalena sheegay inay helaan dhammaan adeegyada aasaasiga u ah noloshooda sida waxbarashada caafimaadka beeraha iyo biyaha nadiifta ah waxaan ku sugnahay qabanaha Mukey ee dibadejinta degmada Imey Bari adeegyada macnaha laga bixiyay ama dawladda ay ka bixisay waa adeeg aad u ballaaran oo ka faa'iideysan faa'iidadaas oo ah kolka hore waxaan ahayn dad kala joogay goobo kala bedelan dawladda markaa macnaha lagu keentay meel waxaanu ka faa'iideysanay adeegyo fara badan waxa kamid ah goob waxay noo dhistay
dowladda deegaanka Soomaalida waxay noo dhiseen xarun caafimaad oo nool lahayn hadda ka hor waxa kale oo ka faa'iideysanay dugsi waxbarasho oo kolka hore aan lahayn ayaan ka faa'iideysan waxa kale oo ka faa'iideysanay dowladda deegaanka noo dhistay dadkii kala meelkii yeelay ay meel soo keentay waxa kale jira mashaariic fara badan oo dowladda noo fidisay ayaa jira oo ka faa'iideysanay oo inta ka hor aan lahayn waxaan ku dhahaa qalabka aan wax ku soo saarno oo dowladda nasiisay marka dowladda waxyaalaha faraha badan bay noo faa'iideysay beeraha dowladda waxaan macnaha si fiican baan uga faa'iideysanaa waxa ka mid ah sida galleyda haruurka iyo sisinta iyo waxaan ku dhahaa sida sisinta galleyda iyo arbaqida haruurka waxyaalahaas aan ka faa'iideysanaa iyo toonta iyo basasha sida waxbarashada gabdhaha aad bay wax uga bartaan gabdhaha way ku fiican yihiin boqolkiiba 50 magacaygu waxa la yiraahdaa Bashir Cabdi Faarax waxaan ahay gudoomiyaha qabaraha mashruuca beeraha sida aan uga faa'iidnay horumarinta waa si fiican sida beeraha sida caafimaadka sida dhan kasta loo kacabo si fiican ayaan uga faa'iidnay xagga dawladana taageero fiican ayaan ku helay waxa kale u baahanahay sida waxbarashada sida beeraha qalabka beeraha lagu talagalay waxana waan helay waxana waan sugeynaa wixii kale aan helayna waxa kamid ah sida biraha lagu qodo dhulka sida xagaafyada wax badan waan ka helay wax badan waan ka sugeynaa dawladda inay soo taageerto annakana dadka ka shaqeyn lahaa beeraha waa diyaar wayna joogaan inay gaajada ka baxaan saboolnimada way doonayaan ka faraya inay si fiican uga guuleysteen dibadejinta wax badan oo faa'iidana way ka heleen sida markii hore dadka qabalada ku nool kalmeel bay kala tuuri jireen ama qabaa'il bay ay fahamsanaayeen hadda inay si fiican isu qaabileen oo si fiican uga socdaan oo wax dhib ka jirin ayaan bulshada faraya waxa kale oo meesha ku jira wax kasta oo kolkooda naga maqnaa inaan hadda helay horumarna aan ku socono sida caruurta waxbarashada kalmeel bay jireen hadda si fiican baa markii loo yeero qofkiiba ilaa 700 caruur ah ayaa ku soo baxaysa goobta maamulka qabaha fiican yahay dowladda taageero badan baan ka haysanaa wax kasta oo loo kacayo waxaan u leeyahay xagga dibadejinta inaan wax fiican ka helo waan leeyahay Hussein iskaashatada alla aamin dadka iskaashatadaasi waa toosan degmada email bari iskaashatada alla aamin qabalaha direy waxaan beeranaa sisin galley basal yaanyo kaarood moos iskaashatada 10 qoys baan nahay 10kii araa galley iyo basal iyo yaanyo moos iyo wax qasabna waan beeray shaqadeenu kor baan u wadaynaa inta ilaahay haduu nagu garab galo kor baan u qaadaynaa degmada email bari qabalaha direy waxaan ku wacyigelinayaa qamadi iyo waxyaalaha waxba ka sugina shaqadiina qabsada wax soo saar baa Ethiopia hadda talaabo u qaaday wax soo saarkiina isku hagaajiya shaqaysta ayaan ku guubaabinayaa
barnaamijkan dib u dejinta ayaa ah mid bulshada xoolo dhaqatada loogu bedelayo xoolo dhaqata beeraley si loogu abuuro nolol degan taasi oo u horseedaysa inay gaadhaan isku filaash dhinaca damaanada cuntada taasi oo qayb libaax ka qaadanaysa hirgelinta qorshaha isbedelka kobaca dhaqaalaha ee 5 sano ee la rabo in wadanka Itoobiya uu ka mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay daawadayaal waxaa intaa inoogu dhan barnaamijkii aan ku eegaynay xaaladda dibdejinta ee degmada Iimay Bari ee gobolka Shabeelle waxaana barnaamijka idin soo diyaariyay isla markaana idin soo jeedinayay anigoo ah Nuur Xuseen tan iyo intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo It's my